madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha sharciga saacada laga bilaabo isbedel weyn ayaa ku yimid sooyaalka hogaamineed ee dalkeenna ee soo tixnaa 60kii sano ee la soo dhaafay taariikhda markii ugu horeysay ayuuna dib u hantay jagada ugu sareysa dalka madaxweyne hore u soo maamulay ka oo noqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya hadda wixii ka dambeeyana ah madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo siyaasadda ka soo fuulay salaanka waxbarashada iyo horumarinta arrimaha bulshada hogaamintiisana hore loo soo tijaabiyay waxa uu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sanadkii 1955 waa aqoonyahan waqti badan galiyay dhab u heshiisiinta bulshada oo ololeeyay waxbarashada iyo barbaarinta ubadka xogogaal u ah caqabadaha amni dhaqaale kala aragti duunaan iyo kuwa juqraafi siyaasadeed ee ku meegaaran dawladnimadeena waxaana ka mid ah waxqabadyadiisii mira dhalay ka hor hogaamintiisii dalka buddhigii iyo aasaaskii macadka Simad oo markii dambe noqday jaamacad weyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 1981 ayuu shahaadada koowaad ka qaatay jaamacadda ummadda shahaadada labaad ayuu hantay 1988 oo uu ka qaatay jaamacadda Barkatullah ee ku taala dalka Hindiya 2015 ayaa isla Barkatullah guddoonsiisay darajada ugu dambeysay ee doctorate-ka iyadoo oo lagu aqoonsaday dadaalkiisii dheeraa ee waxbaridda ubadka Soomaaliyeed sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jaamacado iyo macaahid caalamiya ka qaatay takhasusyo kala duwan ololeeyo ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada dib u heshiisiinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo cilmi baare ayaa ku suntan sooyaalkiisa taariikheed ee la diiwaan galiyay ka hor hogaamintiisii dalka 2011 ayuu Maxamuud si toos ah uga soo muuqday masraxa siyaasadda waxa uuna dhisay xisbigii nabadda iyo horumarinta xubnaha xisbiga ayaana u doortay Abriil 2011 hogaamiyaha xisbiga ee 3 sano ee ugu horeysay bishii Agoosto 2012 ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaankii 9aad ee jamhuuriyadda 10kii Sebtembar 2012 ayaa xildhibaanada baarlamaankii 9aad u doorteen madaxweynihii 8aad ee dalka si weyn ayaana Soomaalida iyo caalamkuba u soo dhaweeyeen doorashadiisa oo loo arkay tilaabo weyn oo dhanka nabadda iyo horumarinta Soomaaliya loo qaaday maadaama burburkii kadib gudaha dalka lagu doortay madaxweyne Soomaaliyeed taasi oo dirtay fariin weyn oo ka turjumaysa soo laabashada Soomaaliyada muddada ka maqneed fagaarayaasha caalamka xoreynta deegaano iyo degmooyin badan oo ka mid ah dalka hirgelinta nidaamka federaalka sal u dhigidda nidaam dawladeed leh hay'ado kala duwan kuna shaqeeya shuruuc qoran iyo soo celinta xiriirka aynu la lahayn caalamka ayaa ka mid ah waxyaabihii uu qabsoomay dawladdii uu hogaaminayay mudane Xasan Sheekh Maxamuud 2012 ilaa 2017 maanta mar kale dawladdiisa waxaa hor yaalla ajendayaal ay ka mid yihiin xasilinta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta dhamaystirka dastuurka doorashooyinka iyo dhismaha hay'ado dawladeed oo hirgelin kara himilada shacabka Soomaaliyeed ku taamayeen tan iyo unkidii dawladnimadeena qalbigeena aan hagaajino aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan leeyahay waxaan ka shaqayn doonaa bili qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhaysigii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la haddii aan leeyahay